السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لقالي ملك السو عالم كجوجتين حلك السو إذن تاي وحن إذن رجينيا عفمت قبتامة وحن إذن لي هاي رمضان أمروك. هل كادي داون إيسان وعمران عبد الشي جنال. هذا تكون عصب تاي وهذا أسو قارتي وحن كاعسنا يا وعدسيو كليا ماها أمر. لايك تسبسكرايب تشير تكومنتي وحاسو إذن وحي تاي إدي رجلي إيها قربيسات. هذا هرنول جوجتي وحاتها ولا الجرا جر أو جوج كرامة كوهيا. فشل دواد واسكسون نقدينا لليه هاي بس يعني وحن ليه هاي قوسكين إلهي بين بركة إلهي حمان تهيدن كهايو وحاواي وذجركينا أو البو يكون أكسيهن مقال كان إلى الدعوة كتب أيام قل دونا فلنقينو إذل sida xaqiiqda dhabta aniga aan ku helayo kulli waxaan ahay qof garbiis maanaga saaran tahay been inaan sheega ma jecli in ani arooskooda ku faraxsanahay laakiin hadda arintaas arrin ka duwan aan meesha taalo arrinta meesha taala waxay tahay maslaxo iyo atoosh yare arrintooda horta mustaqbal ilaahay isku keenayo ahaa laakiin ujeedka laga damacsanayo wuxuu ahaa in muuqaalada laga sameyn doono ay noqdaan muuqaalo dadka ay xiiso geliyaan wax fiican oo ka imaanayo taas dhibaato ma lahan qofka qaabka wax ku helayo ha ku helo waxna haraasado ani ma diidani laakiin midda meesha taalo diidanaya waxay tahay gabar masaakiin ah xaqeeda in lagu tunto maslaxo boqolkiiba boqol waa laga gardaran yahay qaabka noloshayga hadiiba ay sax tahay maslaxo waa laga gardaran yahay hadii aan qaldanahay kabtan waa qaldantaa way dhigi kartaa hadii aan qaldanahay waa celin kartaa adiga naftirkaaga laakiin sida meesha taagana waxa ay tahay maslaxo in laga gardaran yahay oo waliba la dulmiyay maslaxo shala markii la soo gelinayo durdur media waxa ay ahayd durdur media inay kor u qaado laakiin maanta durdur media iyo maslaxo waxa saameyn batay maslaxo maadaama ay saameyn badatay maslaxo oo qof caan ah noqotay dadka oo dhan ay wada yaqaaniin TikTok ay bilowdayna waxa uu gaaray 300 iyo wax ka badan TikTok in laga qaato in la dagaalo in gabadha oo lagu sameeyo waxyaabo aan afka u fiicneen waxa soo dhan waxa sababaya waxay tahay maadaama ay ka saameyn badatay durdur media waxa la rabay in hoos loo celiyo waa ididay sida daraadid dada ku amray in ay la dagaalaan dagaalkaas la kiciyo si iida xataa loogu hanjabo loo dhoo hadii aad waxad wada joojin weyso waa lagu furaa aan hadda qof magaciisa inaan sheega ma doonayo laakiin hadii wadadaas ay ku sii socdaan cadeemo saxna waan keeni doonaa oo muuqaala hortiina aan keeni doono hadallo qaar aan hortiina keeni doonaa oo gabadhaas masaakiinta in looga gardaran yahay cadeynayso waad ka wada bogoteen baabujeyninkii ahaa horta laba xaqiiqa rabaa daaha inaan kaaga qaado labada xaqiiqo ah arooskii ka hor horta labadan qof dadka dhahay bareenkii isku guursideen waxaas horta boojo waa labadan qof laba qof oo isqabo waaye waxa waa annaga wixii qarsoon oo kaleeta Allah shaqo ku leh laakiin waxa daahirka xukminayna dadka aaneeto maarata magaalada Muqdisho joogo waxay marqaati ka yihiin anaga ma dafiri karno dadka dhahay gurigooda wax jira ma aan bareenka waxa laakiin ani xaqiiqo jirta ku sheega xaqiiqada jirta waxa waaye dadka aan guurkooda ha isjeclaadaan balcatooshi maslaxo laakiin dad kale in interest u jirto guurkan sababtoo ah wuxuu dhalinayaa guurkan falcelin fara badan sababtoo xaqiiqo labada oge waaye labadan gabadhan wiilkan ay isguursaday jileec jareed kala ahaayeen waa wax Soomaaliya dhanana kala ah ma aan wax oo cunsurinimo ah ya marka isguursadaan dada ma aragtay qaab qaldan uga soo jawaabay dadna qaab saxan uga soo jawaabayaan dad waa taageerayaan dad waa mucaaradayaan waa la wada maalmo falcelin fara badan oo ka dhalanayso saameyn fara badan oo yeelanaya fees fara badan lagu helayaa hortaasna dadka meesha ku jirtay ma aragtay way ka faa'iideysteen durdur media arooska inay qaban qaabiso ma aragtay waxyaabo fara badan ka geysato taas ay ku uga ahayd hadda marka gabadhi markay saameyn yeelatay ya oo ma aragtay ana horta waxa isleeyahay gabadhan aan iyada raadinaysa caanimada maya iska dhaafnay oo nin xaaskiisa faraha la galgalin gabadhan saama ka soo hadlin waxa saad dhihin afka iska qabso laakiin gabadhaneeto daacadda marka laga hadla xaqiiqada labaad oo ku sheegayo ah gabadhaneeto inay durdur media ka badatay sababtoo ah gabadhan si wax u jileysay iyo qaabka u diyaarsan tahay waxa atooshira waxa la jiiro gal suku haymaho meesha ma gisha kahne saalay brotherkii si ma aragtay kala arag wax loo jilaaya hadee noqoto dhan romancy hadee noqoto dhan kaleeto hadee noqoto dhan xayeysiin way isku soo bixeenbo marka qaabkan inta baabijay ugu fikirina way saxan tahay muuqaalkan baabijay kadib markii la daawado ma arimahooda la hagaajiyo ninkii baaquli boyna muxuu dhahay ya
saddexdooda way wada is og yihiinbo anaga leyna waalayaan wayna dulminayaan fuse nagu raadinayaan ya fuse nagu raadinayaan anagayna dulminayaan barnaamijkaano idil way wada isla og yihiinbo furiina ma jiro wax jirina ma jirto waxaano idil waxaa waaye baranki anaana la waalaan iska daba wareejinaya maalmo kadibna waxay kusoo gabagaboobaysaa arrintaan inta walaalayaalo waa heshiini waxaan gacmo gel jiro hoosa loo dhaqaa gacmo gel jire hoosa loo dhaqaa muuqaalka waxaa ku hayaa ninka baaquli boy ahaa ila daawa fadlan ka baabajiyo waa midaan ku daro si fiican adigu saas aaminsan tahay si fiican aniga waxaan aaminsanahay been ilmish wax badda ka maqnaan ramadaan waay saddexdoodana isoo giina aaminsanahay anagana wareerinaya si fiican waan ogaado tacaaw fiidiyowga qof walba hala dego si fiican in ayaanta nala wareeriyo fiisna lagu raadiyo si walba si lagu raadi karo bili waa heshiin sheekada ay kusoo dhamaato si fiican maantana qof walba caawaasaf garaysto waa kusoo dhamaato wanaag kusoo dhamaatay lee ku imaaneen marka asxaabey maskaxda la shaqay wax badan oo fiis lagu raadi karaa jiro wax badan oo marka adoo magacaaga hoos ruin lagu raadi karaa jiro ma fahanti ana turubkan qaabka u bixiseen iyo dhanka midiga ka bilaadan kulli waa isfahansan lahay ana ayaan suuq anaa ma fahanti adi waxaa masda hebel aan dulminayo anagana dulmiyana aaminsanaaba saddexdood anagana dulmiyana aaminsanahay wallahi waa ana magaalada intaan kula ekaaday ayaan suuq aniga ma fahanti marka asxaabta qaaliga turubkan baan leeyahay markale ku celiyey okay ha waa idinka hadlawtii hore waa idinka hadlaway kolley anaga waa idin degaynaa sumcaddiina iyo sharaftiinaba ha ku weynina ninkii baaquli boy ahaa oo arkayseen wuxuu taagan yahay turubkan qaabka midiga ka bilowdeen waaba qaab qaldanbo gacanta midiga ka bilowdeen qaab qaldan waa turubkan baan lagu celiyo gacanta midiga laga bixiyo sheekadan waan idinku fahmay fuse ku raadinayseen camal ya wax badan oo fuse lagu raadiyaa jiro arrimahan oo kale nin iyo xaaskiisa fuse lagu raadin karo ceebo fara badan ka dhacay gabadhan way qaylisay waxyaabo fara badan ay sameysay anima soo qaadanay gabadhan inta qabiiladan ay u gaftay way ceeltantay waxa soo idil fuse ma lagu raadinaa ma saadii karaan ani aragtay ahaanteeda ilama aha balse baaquli boy waa nin naga experience badan oo ma aragtay muqdishona la joogo ya magaalana in badan soo joogay turubka baandadiisana waa fahansan yahay ya marka laakiin waxyaabo laga xishoodo oo ma aragtay aan naftiba ku siin karin in aad fuse ka raadisid oo foolxumo sharaftaada iyo berita oo hoos u dhigaysaa ya gabadhaninto waxaa waaye waa lagu xadgudbay eedaa loo dooday eedaa saan lahay haddii arrintaan inta berito fuse raadis iyo waxaas inta iska noqoto ka waran runtaada hore waxaa le beentaada hore runtaada dambe ee u baasbaxdaa mid kale dadkaanito maaragtay homaan ku amaada wixii casarkii lagugu arkay cishihii lagugu caaya wa intaa live habeenkii noo soo gashaana waxaa rabtaan noo sheegtaan xaanoodiida anagana marka inaan intaan screen recording idinka duubano inaan maalintii idinkana anagana dadka aan u sheegno waxaa idinka habeenkii aad samaysaan ilaan dad jiifaa jiro oo aan la soconin waxaa habeenkii aad samaysaan anaga dadkaas usoo bandhigayna waxaa habeenkii samaysaan ama 8 saac soo gala ama 9 saac soo gala screen recordero ku dhiiglayaal allaano macnaha kuwii comment ku dhiiglayaal ma ahno kuwan waxaa screen recording ay sameeyaan ayaga ku dhiiglayaal waay shaqadooda waay waa duubayaan meel xun waa taagan yihiin waa joogaan adi item live soo gal ka dhacsano waxaad sheeg meeshaad soo fadhiiso ya waa laga duuba tartiib waa laga duuba kadibna dadka loo soo bandhigaa adi kadib waxaa dhacdaa dadka maa kala fur rabtiin dadka maa isku dirtiin makiinka adaa marka waxaaga banaanka keensatay laakiin waxaa hadii kuu qorsan yihiin gurigaaga kuu kooban yihiin adi islaantaada gurigiin isku dhex firtiin makaamila gurigiin idin kala soo dhex gala may wixiin haddaa qarsatiin makaamila maaragtay idin daba taaleyso may balse idinka wixiina asurta hoos u dhaqda gacmo geli jiro hoosa loo dhaqaa laakiin markaa idinka intaad dhiiqadii aa qasastaan haddana aniga aana weydiinaysaan su-aasha dadka maa kala furtiin maya waa isku geena hadilena ila daawo catooshii maslaxo oo isku soo noqde horta soomaaliya waa idinla hadlaa middaa idin leeya waxay tahay idinka horta dadka isqaba oo caanka inaa kala furtiimaa media ugu jirtiin mase ramadaana lagu jiraa in walaalkaaga iyo walaashaada aa maslaxeysa ugu jirta dad badan waxaa arkaayo oo been abuur iga sheegaayo oo aniga waxaan dhihin soo dhahaayo ana horta xaaskey waa jeclahay waxa ka doontay social media ma aha shalay markaa doonanaa reeraa ka doontay reeraa isiiyey
إذا هدي ميديا إما ما أهن إنا حما أبسرتين ما أهن إنا ورك بونسين ما أهن أنا جنا أفلق ديسين هذا الحمد لله وحى صوتنا وصوتنا مادين وحيد عرا ويدعين حاسكي أنا وخوا وجعلها كوني كوجر وأسكو فرحسناي عدنا كلا جي كرتنا مالها والد كيت أنا جت نمان أنا جو فرحسن أيا أسكو إيمان مان مش أنا برانك معها ده برانك تاعي سومالي أصلا برانك يكسرون تاعي حاسكي أنا وخوا ويلي إنا ميل سو استاين وحهم مدين وحول بود عوال أسكو خاطا وحالا عربي إلكا إسجارة لكن في رميت أنا أذكر معانين نينك استوى عينا يوم وجوابي dadka oo caayl u fasiray maxaade أذيك صوت دول سارين إن أني أذن نسيك جيان عملنا waad wada daawateen muuqaalkooda cid idin kala fur rabto ma jirto dadka dhahaayo gurkooda baranki wax ku dambaabina malaa'iga garbihiina saara dadkan iyaga sheeganaya mar walba idin leh waa isqabna iyaga meel walba la taagan waa isqabna adiga dawaahirta xukumi laakiin waxyaabaha quluubta ku jiro israa'ilta ilaahay u daa adi qaadiha noqon oo wax kala gooyo oo xukunka asla taagan balse idinkan waxa idin sheegay dadkiina caanka cid idin kala furaysa ma jirto cid afaari in gelin karta ma jirto boqolaal isqabo arrimahooda qaasi u yihiin cid ka warqabtana ay sijirin cid ogna ay sijirin laakiin hadaa adiga wada qaldan jaaxato waa lagu wadaa wadaas qaldana lagu wadaa adaa saan dhahday oo ku hortaala 10 sano hadda kadib videodaas waa ku jira social media cid ka baxsanaysa ilaahay unta ma jirto waa la soo qoraa marka Soomaaliya intaadan falin ka fiirso waxa casarka lagu arkaa cishii lagu wacaayaha dadka maxaa ay kale abaa dhahday abaa dhiiqadan qasatay kadib cala dhiiqamka qasatid adiga ku taala dhiiqada qasatay ku taala waana xanuun afkaaga qabso wax kasta dhacaan dhibaato kasta ku soo gaarto family problem walba ku soo gaaro horta marka family problem uu jiro way xanuun badanta laakiin afkaaga ka adkow war hore idinku sheegay ana waxaan indhahay hatta saaxiibada qaarkood way ku qodqodayaan si sirtaada u sii faafiyaan inaan social media soo fadhiiskida kuugu dhow hatta walaalaha kuwa kamid wixii wax ku weydiinayaan waxay kugu soo dhawaanayaan arrimaha qoyskaaga ku weydiinayaan si ay maaragtay ula socdaan ay iyagan u sii sheegaan waray xiiseynayaan laakiin mid ogow mas'alana ogow waxa adi qarin weysay oo adi haysan weysay cid ku heenayso oo ilaahay uunta ma jirto marka adi public la imaato waxa waay adaa wax marka nafta waxa waay nin nafsadiisa maaragtay intee sirtaadu u faafiyay markaas hadana wuxuu leeyahay adi qof kale ku dhiga adi maxaa sirteeda u faafisay sirtaada ninkaas yaa u sheegay waxaan ku soo meereynaa talada walaalkeen baaquli boy uu nala talinaayo ragga xaaslayaasha oo social media ku jiro iyo dumarka naftirkooda way qusaysaa sababtoo labada dhinac way wada taabanaysaa hal mid aan ku dir lahay shalay naagahan ee nimanka isqabo social media horta waan wareeriyay ninkayga hanti qaran oo noqday ninkayga meel gaara barnaamijyada marka ayaga hawada geliyay si fiican sidii waxa dhigay horta walaalkay kabtan baan dhahay qof walba aqal leh ama dameer leh xaaskiisa social media ma keeno maad laakiin sidii waxaan anigu fahminaa dadkan iyo si kale waxbaa ka qaldan isla hoos ma u duleelana isla nin baa naagtiisa soo neekinay social media dhax keenay marka hore jidka la maraa jid qaldan ahaa jidka sidiisana qalad ku dhamaana xaqiiqo waay si fiican aniga ila soo jecli horta waxaa rajinaa in wax walba oo qeyr ku dhamaadaan wax kale ku daro ma aqaan oo ani baashaan indhaha ka fiiriyo jidka aad ku socotay hadduu qalad ahaa wuxuu ku dhamaanaa qalad haddaad ma aragtay haaskaaga intaad suu sheegay baaquli boy adoo lan yikinas soo duubto wada qaldan aad ku socotay wada qaldan leh ku dhamaanaysiin waxaa saxiix oo xaqiiqa aad ku sheegay labada xaqiiqa ku sheegay waxa maslaxa inay ka zaid caleysay marka horeetana ma aragtay gabadhan shududur media in loo keenin bo ma aragtay ha isjeclaadaan laakiin interest ku jiray interest ku jiro hore kugu sheegay wuxuu ahaa hadalka lama saarnaado ma aragtay maanta dhan luuma gargaraaco laakiin labadaas inta xaqiiqa waa wuxuu ahaa interest ku jiro gabadhan iyo Catoosh markii la isku daro in falcelin fara badan ay ka dhalan doonto gabadhan durdur media way ka zaid caleysay ma hadalka Catoosh ma hadalka Baabajey
ma hadalka baabajey ayaa gabadhaaneeto ma aragtay arrinteedii dib loogu soo celiyay mise arrintaaneeto iyadaa baranka ee iska aheedoo turubka qaab qaldanay ka bilaabeenta uu sheegaayo baaquli boy ayaa saxan adigu fikradaada commentiga noogu xariiq. السلام عليكم.